Dhaqamada la yaabka leh ee qabiilka Maasai-da waxaa ka mid ah in ninku guursan karo intuu doono oo dumar ah. Ninba ninka kale inta uu ka loo badan yahay ayuu ka naaga badan yahay. Arrinka waxaasiba ka sii cajiib badan waxa weeyaan in ninka Maasai-da ay marka nin kale uu u soo martiyo uu ku soo dhoweynayo mid ka mid ah dumarkii uu qabay, oo sidaasina ay ninka martida kula seexan karto habeenkaasi. Waa anigoo Amo Nomad, waxaan maanta idin hayaa muuqaal kale oo xiiso badan. Ka hor inta aynaan hore ugu socon muuqaalkeena maanta, waxaan kaa codsanayaa inaad channelkeena subscribe saarto, gambaleelkana furato. Daawasho wacan. Qabiilka Maasai-du waxay ka mid yihiin qabiilada ugu tunka weyn ee dega koonfurta Kenya iyo waqooyiga Tanzania, waxayna degaan baadiyaha wadamadaasi. Waa xoolo dhaqato, gaar ahaan lo'da ayay dhaqdaan, waxayna aaminsan yihiin lo'da in Ilaahay gaar ahaan u siiyey qabiilka ay yihiin ee Maasai-da, oo aanay jirinba dunida cid kale oo Ilaahay lo'da ugu talagalay. Qabiilkan Maasai-du waa dad reer guuraa ah, ma beertaan wax dalaga, ee waxay marba u haajiraan halka baadka iyo biyuhu yaalliin markaasi. Sida kale haddii aynu u dhignana, halka markaasi aan abaarta ahayn ee barwaaqadu taalla ayay marba u guuraan. Qabiilkani kaliya ma dhaqdaan lo'da ee waxaa u weheliya sidoo kale inay dhaqdaan adhiga. Marka la isku daro Maasai-da Kenya iyo kuwa Tanzania degan, waxay tiradoodu gaadhaysaa 1 milyan iyo badh qof oo ku kala nool kumanaan kun oo kiiloomitir oo baadiyaha wadamadaasi ah, oo aan cidila deganayn cid booqasho ugu timaada mooye. Bulshada qabiilkani Maasai-da waxaa hoggaanka u ah ama talada dadkani ka go'daa waa ragga. Ninka Maasai-ga ahi waxa uu guursan karaa inta uu doono ee dumar ah, ninba ninka kale inta uu ka loo badan yahay waa uu ka naaga badan yahay. Qabitaanka naagaha badan ayaa qabiilkani Maasai-da muujinaya taajirnimo. Sidoo kale, ciyaal badan in ninku dhalaa waxay muujinaysaa hantida ninkaasi inta ay le'eg tahay. Inkasta oo qabiilka Maasai-da ka mid ahi waxa uu halgan ugu jiraa sidii uu lo' badan, dumar badan iyo carruur badan u heli lahaa. Qabiilkan Maasai-da dhexdiisa haweenku xuquuq kuma laha. Badi dumarkani waa kuwa aan aqoon lahayn. In yaroo ka mid ah dumarkanina waxa ay fahmaan luqadda Swahili-ga, oo ah luqad si weyn wadamada Kenya iyo Tanzania loogaga hadlo. Dumarka qabiilkani ayaa kaliya ku hadla luqadda qabiilkooda ee Maa. Luqaddan Maa kaliya waa mid lagu hadlo laakiin aan la qorin ama aan lahayn wax qoraal ah. Magaca qabiilkani ee Maasai ayaa sidoo kale la micno ah luqadda Maa dadka ku hadla. Dumarka qabiilkani ayaa ah kuwo la gudo ka hor inta aan la guursan. Gudniinka nooca la gudaa waa nooca fircooniga ah oo la jaro qaybo badan oo ka mid ah xubnihii taranka. Sidoo kale, wiilasha ayaa iyaguna la gudaa markay gaadhaan da'da 13 sano jirka. Waxaa lagu gudaa wiilasha meel fagaara ah oo dad badani joogaan, waxaana ceeb ka ah in wiilka Maasai-ga ahi marka la gudayo uu ooyo. Waxaa lagu gudaa sakiin iyadoon suuxisa la isticmaalin. Walow Soomaali ahaan dhaqankan aynu la wadaagno qabiilkan Maasai-da, laakiin Soomaalida gudaheeda in wiil yaroo la gudayaa ooyaa ceeb kama aha. Qabiilkani deegaan ahaan waxay dhistaan guryo carshaan ama buulal, hadba sida aad u taqaanaa ah, kuwaasi oo ka samaysan dhir iyo saanta xoolaha. Waxaana dhacda marmarka qaar in adhiga iyo dadkuba u wada hoydaan buulkaasi gudihiisa. Xanuunka ugu badan ee u dhintaan carruurta qabiilkani Maasai-da ayaa ah xanuunka qaaxada. Qabiilka Maasai-du waxay gebi ahaanba ka soo horjeedaan isticmaalka daawooyinka casriga ah ee xanuunada lagu daweeyo, sida kiniini, irbad ama sharoobo. Nooc kasta ee ahaataba dawooyinka magaalooyinka laga isticmaalo qabiilkani ma aha kuwo isticmaala. Qabiilkan Maasai-da waxay ka kooban yihiin 2 qaybood: qayb baadiyaha degan, dhaqamada aynu ka sheekaynana leh, iyo qayb kale oo reer magaaloobay sidaasina uga dhex baxay baadiyaha oo ku nool magaalooyinka una nool sida dadka kale ee caadiga ah. Laakiin muuqaalkeenna maanta maadaama uu daaran yahay qaybta dhaqanka weli ku sii adag, waxyaabaha ugu la yaabka badan ee qabiilkani leeyahay waxaa ka mid ah inay dhiigga cabbaan, gaar ahaan dhiigga lo'da. Waxay caado u leeyihiin Maasai-da inay neefka lo'da ah dhuunta waran ka geliyaan, sidaasina dhiigga ka soo burqada neefka ay weel u dhigtaan oo ay cabbaan. Gaar ahaan munaasabadaha waaweyn ayaa arrinkani la sameeyaa, sida waqtiga guurka cusub dhacayo, marka carruurtu dhalato, iyo sidoo kale marka carruurta la gudayo.
sidoo kale dhiigga waxaa la siiyaa dadka waaweyn si ay tamar darrada iyo xanuunada uga hortagaan. Cuntooyinka ay caadada u leeyihiin waxaa ka mid ah inay ubbad ku shubaan caano, dhiig iyo masago, markaasina ay isku walaaqaan dabadeedna cabbaan si ay borotiin badan ugu helaan. Qabiilkani maadaama ay aad u socdaan, waxay kaba ahaan u isticmaalaan taayirka gawaadhida oo ay qaab kab u eg u gooyaan, sidaasina ku iladaan. Kabaha noocani ahina waa kuwo aad uga raandhiis wacan kuwa kale ee caadiga ah. Inay dhammaadaan kabahanina waxay qaataan wakhti ka badan wakhtiga kuwa caadiga ahi ku dhammaadaan. Xilliyada faanka, haddii aynu tusaale u soo qaadanno Soomaalida dhexdeeda odhaahyada la isticmaalo waxaa ka mid ah ina libaax sanka taabtee, laakiin qabiilkan Masaayda arrinkoodu sidaasi waa uu ka duwan yahay oo libaaxa qudhiisa way ugaadhsadaan. Libaaxa noociisa labka ah waa kan keliya ee qabiilkan Masaaydu ay ugaadhsadaan, noociisa dhadigse ma raadsadaan. Waxaa ka mid ah dhaqamada qabiiladani in hal nin uu soo ugaadhsado libaax isagoo keliya ku hubaysan waran iyo toorey, waxayna dhaqan ahaan aaminsan yihiin in libaax la ugaadhsadaa inay tahay calaamad muujinaysa tamar badnaan iyo geesinimo. Kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah dhaqamada la yaab kale ee qabiilka Masaayda ee degan bariga Afrika ay leeyihiin. Maadaama muuqaalkeennan oo kooban dartii aanan dhammaan dhaqamada qabiilkani muuqaal keliya ku soo koobi karin, intaasi waa qaar ka mid a kuwa aan jeclaystay inaan idinkala wadaago. Ka hor inta aynaan muuqaalkeenna maanta dhammayn, waxaan ku xasuusinayaa mar kale, haddii ay tahay markii kugu horraysay aadna soo booqato, inaadan ilaawin inaad janaalkeenna sabskrayb saarto, gambalelkana furato. haddii aad asxaabteenna Monomaad ka mid tahayna muuqaalkeenna like saar, asxaabtaadana la wadaag. mahadsanid.